kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dalka media qodobada maanta ugu dooroon aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah khayra oo soo xiray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee dalka digniin laga bixiyay halista ka dhalan karta aamusnaanta khayra iyo farmaajo safiirka Mareykanka ee Kenya oo weeraray madaxda Kenya kuna tilmaamay tuugo farmaajo khayra oo bilaabay qorshe lagu kala geynayo beelaha galmudug qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal dalka media balse aan ku bilaabo magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo uu helinayo wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Bare ayaa soo xiray imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka oo si guul iyo nabad ku soo dhamaaday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa booqday xarunta Gahayr ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo kamid ah goobaha imtixaanka maalmahan ka socday si uu ogaado xaaladda ardayda gashay imtixaanka uguna dhiirigeliyo in ay sii wadaan heerarka kala duwan ee waxbarashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ardayda Soomaaliyeed ee u soo dhabar adeegay waxbarashada u rajeeyay guul wuxuu ku booriyay in ay dadaal iyo dulqaad sii wadaan si ay hogaamiyaasha dalka ugu mid noqdaan ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo la hadlayay ardayda Soomaaliyeed oo maanta uu soo dhamaaday imtixaanka dugsiga sare ee dalka imtixaanka shahaadiga oo sanadkan ay ka qayb galeen 1,258 arday ayaa wuxuu isku mid ugu socday magaalooyinka Muqdisho iyo gobolada dalka imtixaanka ayaa guul ku soo dhamaaday kadib markii uu hore u fashilmay markii qishkiisa la helay taasi oo hogaamisay in la joojiyo dibna xildhibaan Zakariya Xaaji Maxamuud ayaa ka hadlay go'aanadii ugu dambeeyay ee dowladda Kenya ay ka qaadatay Soomaaliya iyo aamusnaanta madaxda dowladda federaalka Soomaaliya todobaadyadii ugu dambeeyay waxaa sii xoogeysanayay go'aanada kala duwan ee dowladda Kenya ay ka qaadanaysay dowladda Soomaaliya iyo ka bixitaankii heshiiskii hore labada dal u kala saxiixdeen ee ahaa duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi xildhibaanka ayaa sheegay in madaxda dowladda Soomaaliya ay ka aamusan tahay xaaladda siyaasadeed ee sii cakirintay inay keenayso niyad weyn oo shacabka Soomaaliyeed ku dhaca isagoo sheegay in madaxda dalka loogu baahan yahay inay ka hadlaan culeysyada soo kordhay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa dhawaan qoraal ka soo baxay wuxuu u muuqday mid aysan si toos ah ugu jawaabin go'aanada waaweyn ay qaadatay dowladda Kenya oo ugu horeyso ceerintii safiir Tarsan wuxuu sidoo kale hadalkiisa intaasi ku sii daray in mar walba talaabooyin la qaado xaaladda siyaasadeed ee dalka ay ka dhidhiyaan shacabka Soomaaliyeed oo sameeyo banaanbaxyo ay ugu soo horjeedaan balse wali waxay laayihiin madax ku garabsiisa sida uu hadalka u dhigay Kenya iyo Ethiopia ayaa walaac badan ku abuurtay shacabka Soomaaliyeed kadib markii ay qaadeen talaabooyin ka cariisiyay Soomaalida madaxweyne Farmaajo ayaa lagu xasuustaa sida uu la kaftamo madaxda dowlad goboleedyada dalka markay arrimo badan ay isku qabteen balse wali kuma kaftamin xaaladaha iyo go'aanada dalalka dariska ah ee ka dhanka Soomaaliya safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Kenya ayaa ku jejeysay quraacda ducada Quraanka Kenya oo maalintii Khamiista lagu qabtay Hotel Safari ee ku yaala magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya oo ay ku kulmeen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaasha kale ee dalkaasi qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay hogaamiyaasha Kenya waxay quraacda ducada Quraanka ku duceysanayeen oo ay dalbanayeen in laga cafiyo dambiyada ay galeen ee xatooyada ah waa bilow wanaagsan oo Quraanka lagu hogaamiyo wadada baraaraha ee Kenya u qalanto waa inaan dhammaan ka qayb galnaa ayuu yiri safiirka Mareykanka u fadhiya Kenya oo ku kaftamayay booqashada uu booqday Uhuru Kenyatta masjid ku yaala magaalada Nairobi qoraalkiisa ayaa yimid xilli uu sidoo kale horaantii bishan sheegay in muslimiinta Kenya ee ku lug yeesha musuqmaasuqan loo ogolaan doonin inay booqdaan dalka Mareykanka wuxuu sidoo kale sheegay in xubnaha qoyskooda aan loo ogolaan doonin Mareykanka isla markaana caruurtooda laga hor istaagi doono in ay wax ku bartaan dalka Mareykanka qoraalkiisa ayaa waxa aad ugu falceliyay dadka Kenya oo qaarkood aad ula dhacay kuna raacay kuwaas oo madaxda Kenya ku tilmaamo tuugo oo musuqmaasuq hareeyay Kenya ayaa waxa lagu tiriyaa mid ka mid ah dalalka ugu musuqmaasuq badan caalamka magaalada Muqdisho waxa ka socda kulamo gaar ah oo ay wadaan wakiilo ka socda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
iyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaana lala yeelanayaa qaar ka mid ah beelaha dega Galmudug. warar hoose oo heshay dalka media ayaa waxay ogaatay in kulamadan lagu doonayo in odayaasha deegaanka iyo siyaasiyiinta ay ka soo horjeestaan madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo hogaamiyaasha maamulkii Al-Sunna ee dhawaan ku biiray Galmudug. Muqdisho waxaa ka dhacay dhowr jeer kulamo aan kala dheerayn oo lala qaatay siyaasiyiinta iyo odayaasha Galmudug, waxaana kulamadaasi hormuud u ahaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo xubnaha golaha wasiirada ee ka soo jeeda deegaanada maamulka Galmudug. xogtan Helena ayaa sheegay in odayaasha loo balan qaaday adduun lacageed isla markaana laga dalbanayo in ay ku dhawaaqaan in uu dhamaaday waqtiga madaxweyne Xaaf. dowladda Soomaaliya ay kala shaqeyn doonaan sidii ay doorasho ugu dhici lahayd Galmudug. Villa Soomaaliya waxay dadaal adag ugu jirtaa sidii doorasho ay u qaban lahayd dhamaadka sanadkan deegaanada maamulka Galmudug, balse waxay wajahaysaa caqabado badan oo u imaanaya xubnaha xildhibaanada ah ee Galmudug ka soo jeeday siyaasiyiinta deegaanada Galmudug. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa arrintan Galmudug u maraya xildhibaano ay isku beel yihiin, wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa iyo siyaasiyiin la dhacsan madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya. sidoo kale wararka ay helayso dalka media ayaa xaqiijinaya in odayaal badan iyo siyaasiyiin loo balan qaaday xilal muhiim ah oo laga siin doono dowladda federaalka Soomaaliya iyo Galmudug, halka qaar kalena loo balan qaaday malaayiin lacag ah haddii ay soo afjaraan qalalaasaha Galmudug. lama oga sida ay ku dhamaan doonto xaaladda Galmudug, ha yeeshee waxaa muuqato in uu jiro isjiid iyo kala jiidasho ka bilaabatay dhinaca dhaqanka oo hadda ka madax banaan khilaafka Galmudug. haddii ay dhaqanka ku biiraan xiisadda Galmudug waxaa laga cabsi qabaa in dhibaatada Galmudug ay isu rogto dagaal sokeeye oo aan laga soo kaban, maadaama deegaanka ay degan yihiin dadka lagu tiriyo dadka meelka adag. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen dalka media. intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.